I reserve the right to my time. Ilhaan Cumar ayaa markii saddexaad ku guuleysatay doorashada kursiga degmada shanaad ee gobolka Minnesota ee Congress-ka Mareykanka kadib markii ay ka adkaatay xubintii la tartamaysay oo ka tirsaneyd xisbiga Jamhuuriga. Ilhaan ayaa sanadkii 2018 noqotay qofkii ugu horeeyay ee Soomaali Mareykan ah ee loo doortay Congress-ka Mareykanka inay ka mid noqoto waxaana ay difaacatay kursigeedii markii saddexaad oo xiriir ah. hadal kooban oo ay u jeedisay taageerayaasheeda Ilhaan Cumar kadib doorashadeedii guusheeda waxa ay sheegtay in guushan ay tahay mid u soo hoyatay Soomaalida ku nool dalka Mareykanka waxaana ay sheegtay in ay ku faraxsan tahay inay ku guuleysato kursigan markii saddexaad oo xiriir ah waxaana ay u mahadcelisay dhammaan dadkii doortay kuwaas oo u arkay inay tahay qof mudan kursiga. Cabdinaasir Socdaal, Bilan Radio.